sheekadu waxay ku bilaabanaysaa nin helay telefoon lumay balse halkii uu milkiilihiisa u celin lahaa wuxuu si xun u jabiyay shaashada. Nus saac kadibna wuxuu wacayaa milkiilihii wuxuu u sheegayaa inuu helay telefoonkeedii oo uu geeyay goob dayactir isagoo ku boorinaya inay isla markiiba timaado oo qaadato. Gabadhu iyadoo faraxsan ayay gashay goobtii dayactirka iyadoo aan gebi ahaanba ogeyn inay si toos ah ugu dhacday. Wuxuu siiyay warqad dayactir ah wuxuuna ku yiraahday waa inaad xogtaada ku qortaa ka hor inta uusan telefoonka hagaajin. Waxay la yaabtay in warqadu ka rabto lambarka sirta ah ee telefoonkeeda iyadoo shaashad kaliya la hagaajinayo. Haddana way qortay iyadoo doonaysa inay telefoonkeeda si degdeg ah loogu hagaajiyo. Si lama filaan ah ninka kuma degdegin inuu shaashada hagaajiyo. Halkii uu shaashada hagaajin lahaa wuxuu si taxaddar leh u furay dhabarka telefoonka. Boolarkii ayuu furay wuxuuna soo saaray qaybta weyn ee gudaha telefoonka. Si qarsoodi ah ayuu kaameradii ugu bedelay mid kale oo gaar ah loogu bedelay. Kadibna shaashadii ayuu dib ugu xiray laakiin intaas kuma ekaan. Kadib wuxuu telefoonkii ku furay lambarkii sirta ahaa ee gabadhu siisay wuxuuna ku xiray kombiyuutar wuxuuna nidaamka ku xiray barnaamij malware ah oo Trojan ah. Kadib wuxuu armaajada ka soo qaatay telefoon isla noocaas ah wuxuuna ku xiray fiilo adapter ah wuxuuna xogtii telefoonka ku koobiyay telefoonkaas kale. Gabadhii aad bay ugu farxday telefoonkeedii oo sidii mid cusub ugu muuqda laakiin qarowgeedii markaas ayuu bilaabmay. Turjaankii uu rakabay ayuu ku maamuli karay kaamirada gaarka ah ee telefoonkeeda kombiyuutarkiisa taasoo telefoonkii ka dhigay qalab uu meel fog si dhow ugu daawan karo. Dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameyso ayuu ninku si dhow ula socday xitaa faahfaahin yar. Waxaa ka sii yaabadnaa in ficil kasta oo ay telefoonkeeda ku sameyso uu isla waqtigaas ugu muuqanayay qalabkiisa taasoo ka dhigtay inaysan wax sir ah haba yaraatee lahayn. Maalmo uu si qarsoodi ah ula socday kadib wuxuu bartay faahfaahin kasta oo ku saabsan gabadha wuxuuna ogaaday in magaceedu yahay Naami inay maalintii haysato shaqo joogto ah fiidkiina ay ka caabiso aabaheed dukaanka baabalteega. Wuxuu ogaa in cabitaankeeda ay ugu jeceshahay uu yahay casiirka garaabi fruitka ciyaarta ay inta badan ciyaartana tahay PUBG isla markaana ay nolosheeda ku lahayd laba qof oo aad ugu dhow maamulaheeda shaqada iyo saaxiibteeda ugu fiican Liza. Waxaa ka sii argagax badnaa in marka Naami haweenkii seexato uu ninku meel fog kaga maamuli jiray telefoonkeeda isagoo dhexgeli jiray dhammaan abiska ku jiray. Isaga Naami waxay hadda ula muuqatay qof sida warqad cad oo kale ah oo aan wax sir ah u harsan jirin. Markuu dhammaan xogtaas gacanta ku dhigay ninku wuxuu u gudbay marxaladii xigtay ee qorshihiisa inuu nolosha dhabta ah ee Naami soo galo kadibna si tartiib u dhibaateeyo ilaa ay ka dhimato. Habeenkaas ninku si taxaddar leh ayuu u libistay si uu u ekaado nooca ninka Naami ay jeceshahay. Kadibna wuxuu yimid dukaanka baabalteega ee aabaheed isla markiiba wuxuu dalbaday casiir garaabi fruit ah. Kadibna si ulkaac ah ayuu miis u fariistay isagoo ciyaaraya muuqaalkiisa soo jiidashada leh iyo dhoola cadeyntiisa wanaagsan iyo waxyaabihii ay jeclaayeen awgood. Naami way ka wareeshay oo indhaheeda ayuu soo jiitay. Labadooda si dhaqso ah ayay u wada sheekaysteen. Naamina waxay la yaabtay inay si fiican isugu fahmeen xitaa muuqaal ahaan iyo qiyamka nolosha laakiin aabaheed ayaa markii dambe ugu digay isagoo u sheegay wax kasta ay ninka ku saabsan ay u muuqdeen kuwo si xad dhaaf ah isugu soo beegmay sidii wax walba loo sii qorsheeyay. Wuxuuna ku yiri inay ka fogaato laakiin Naami mar hore ay ninka ka heshay mana aysan rabin inay dhageysato. Xitaa aabaheed waxay la gashay muran kulul arrintaas darteed. Ninku wuxuu murankooda